السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر فيديو عصب halka naga daawaneysna waa kanaalka Naajiyo Caraale soo noqdo wanaagsan oo qurux badan aad iyo aad baa idin salaamay dhamaantiin. Maanta waxa inoo hayaa maanta waxa inoo soo qabtay wow gabar baa maanta inoo soo hayaa laakiin gabadhan waxa ka faa'iidi doontaan wax badan aad u weyn. Horta soo dhaw waa leeyahay Canab ku soo dhaw kanaalkayga aye magacaaga inoo sheeg. magacayga Canab عنبيتا توبا لها صراحة ما شاء الله عنب ولا شيء ويان أنتي آد وحنيجا أصلا هنا يجلسوا دويسان يوتيوب بلاد بايو فإيدوين بدن أي سوق اللي صارون يوتيوب كذا وحي برات كوتش ويان وحيالا عافمات كي كنت تخصصتي وحاصلن بإذن كعاونة ساعة waxaan ku leeyahay gabadhii caataheed ayil baa laga dhigayaa gabadhii cayilneed caataa laga dhigayaa dhinac walba laga dhisayaa ma sha Allah heestii bidix ka dhow wallahi ma sha Allah waan ku faraxsanahay anabina maanta soo gashay YouTube-kayga aad iyo aad waayo ama gabar iigu dambeysay sanad ka hor ba umalay Faaduma yar way xasuustaan oo ka soo muuqata Faaduma yar halkaan ka salaamina Faaduma iigu dambeysay ma sha Allah aad ugu faraxsanahay inaan janalka ka soo muuqdo أصحابتنا آد يعني حاجة أقول سلامة يا ما شاء الله برشوا ناكسن مسكينة داير قصة بيقول بلنا ما شاء الله ما أنت محاولنا برنامج مهمة ضدك كفايدة سنة يعني إن شاء الله تعالى بيوتيوب كذا أنت تقتنعتي برنامج في تمين ذا أيضا كهلا اسم حاجة كوفي عن نهارت محاكو تخصص تمهيد الحرفة دي دو نيوتريشن horta mar walbana waxaan ka hadlaa waxa waaye xiriirka ka dhaxeeya cuntada aan cunayno lifestyle-keena jirkeena nolosheena wax walba waa circle waa sirta loo baahan gabdhaheena waa inaan iska taxadirnaa yani waxa cunayno waxa afka gelinayno hadda maanta shaax bay ii soo karsay shaaxan waxa lagu soo daray hal xabo sokor ah way xisaabsan tahay la iska cabaayay shaaxan wax walba saas ay u xisaabsan tahay meeshan miisaan baa u yaala cuntada ay cunayso way miisaantaa هذا عند اسكو كردين سيدا هذا اسكو تشريس لبضبا سو والله واحد بدنا عن كعبرت انت يرتا كل شيء يعني بما انت حتى فائدوين كفيتامين ده فائدوين كمارتي كولاجين مالا كولاجين ولي مستعمل على كوسو قدام دون استعمال دون ان شاء الله لكن صفة عن يوتيوب كا برنامج اصلا هذا شيء واسق عن اد وجعل على لينك يا سو دغاي اني سو داودان لكن انا ما انت برنامج كا اودنا waxay tahay gabdhaha kilino وكدوين حرجينا انه horta xiisa badan yeesho midda kale waxa laga yaabaa marmar in kelinimo markii la dhahayo inay noqoto adigoo dadkaaga la nool hada Soomaaliya kale marka ha ka boodin inay ku qosaysaa laga yaabaa oo dhahay Soomaaliya joogaan kelimo ihin may Soomaali bismaa kelinimada waa leela jooga family-kayga ay wareer marmar waxa laga yaabaa inaad dadkii ku dhex jirtay laakiin keli dareemaysa been maaha waaba marmar way jirtaa hooyada aabaha reerkaaga ku dhex jiro inaad dareentid kelinimo waxanabay waarun laakiin hadda anaga waxa ka hadlaynaa maadaama kelinimo aan noolnahay oo qurbo la joogo oo qof walba guri u degan yahay cidla ah hadda adiga gurigaan aad degan tahay aniga sidoo kale guri cidlaan deganaa waa guriga waa is ognahay lama qurbaha sidee marka su'aashan ku weydiinaa waxay tahay Canab sidee ugu noolaan kartaa gabdhaha single-ka si nolol qurux badan oo depression lahayn gabdhaha badiyaa depression ay qaadaan stress ay qaadaan sidoo wada ognahay qaarkood way xumaadaan gabdhaha maxay u xumaadaan baa leeyahay cidlada qaar u xumaadaan marka sidee lagu heli karaa gabar yani kaligeed salistanti yani isku toosan awood leh kaligeed wax qabsata noolaato bila family bila waxba yani sidee lagu heli karaa nolol noocaas horta gabdhaha Soomaalida wallahi ma sha Allah waxa xasuustaa marka wadankan iska cusbaa 2019 aan horta imaaday markaasna shaqada bilaabay age-kaygu iska yaray waxa jirtay gabar ila shaqeyn jirtay oo markaas age-keen iska daba dhawaay sax iyo hooyadeeda meesha ku shaqeyn jirnay mar walba hooyada waxay jeclayd gabadh inaa la saaxiibo haye maxaa dhacay waxay ii arki jirtay qaftaf maxaa la dhahay waalidkeeda la nooleen shaqaysanay shaqada wali barigaas iimaanka laay shaqada xog u raadin jirtay bismillah wallahi bila toona for energy-ga hay jiraan hadda ma sha Allah marka waxa waaye mar walba waxay dhigi jirtay gabdhaha arkay in Soomaalida oo aad tough u yihiin wika aad adag yihiin gabdho badan anagana waxaan aaminsanahay hadda gabdhaha cadaanka inay naga karti badan yihiin somehow qofku waa la siiya xaqiisa meelo badan way nooga karti badan yihiin meelana anaga oo karti badan so kelinimo inaad ku noolaatid familkaaga la nooleen in gabdhaha qaarkood ay lacag diraan
dad kugu Masha xariiraan Allah. inaa waxyaabo badan waa horta dhinacaas waxyaalo badan oo uga fiican ha iyo gabdhaha keligood maarta ilmaha inta lagu furo keligood ilmaha haya keligood silcaaya yani kartida xoogaa ku leenahay taas ayaga badiyaa ilmaha kuma silcaan ayaga waxaas dhahaa isfaham waxay leeyihiin dhinac way ka karti badan yihiin gabdhaha soomaalida maxaa dhacay waxay leeyihiin xuquuqdooda sida ay usoo dhacsan karaan ay haystaan maxaa dhacay ninka way la xisaabtami karaan marmar inaa maskaxda adiga ilmaha u korisid qofka oo hadhowdinaya beri markay weynaadaan mar walbo ani aabahayga waa la agsana markuu weynaado waa run waa qasab laakiin gaalada aniga saan maqlay gabdhahooda si fiican gabdho single maadara ma ula kulmin aabala-aan ilmo ma korin karaan way ku adagtaa saa maqleen laakiin ayagana maybe nimankoodii waxay wada shaqeyn ka dhexeysa shaqeyn maasha allah horta gabdhaha norwegianka aada starku yihiin ayaga way adag yihiin saan arkay ama saa maqlay marka sidee aad u heli kartaa nolol perfecti ah adi ahaan iska soo qaad gabdhaha wax la talin baa siinayna gabdhaha dhiirigelinaa siinayna gabar keligeed nool qurbaha sidee uga bixi kartaa kelinimada sidee gabar adag oo isku toosan u noqon kartaa isleedahay horta wallahi wax walba maaragtay waxay kugu xiran tahay adiga maxaa dhacay maskaxdan yar ilaahay wuxuu ku siiyey inaad fikirtid mar walbana situationka ku jirtid adaa iska saari kartid haddii marka aad dareenti kalinimo haddii aad ahday habeen walba xaflada aadayaa aroosa tagaaya waxaa tagaaya meelo oo isha qamri lagu cabo shiishad lagu cabo adoo ka raadinaysid bulsho way kula tegaysaa waxba ma qabsanaysid waqtigana wuu soconayaa maalin waxaa imaanaysa energyga maanta ay haysid oo inta fircoonta aad beri helin caafimaadka ay haysid maybe helin depressionka mid kale wuu sii saa'idaa aada weyn qofka ina depression kugu dhacaabo dad badan depression hayo waxaa jira laakiin oo lagu mashquulaa la dhahay maxay sidaan u yihiin laakiin qofkaan la ogeyn situationka uu markaas ku jiro aada weyn marka maxaa uga bixi kartaa uga bixi kartaa naftaada la saaxiib number one waa muhiim naftaada inaad kow la saaxiibtid aad isku kalsoonaatid kalsoonida wax weyn waaye horta ani number one meesha ah dad kala taliya waxaa waaye waxa uu koowaada energy ku siiyo waa waxa afkaaga ku ridaysid waa inaa cunto fiican cuntaa subaxii markaa soo kacdid positive energy xagga ka heli kartaa cuntada kow aad leedahay waa inaad samaysaa cuntada aad yani ka taxadirtaa miisaanta sidii waxaa waaye jirkaaga oo kale waa gaari shidaal fiican markaas ku shubtid gaarigaas u shaqeynaya asagana marka subaxii cunto fiican cun waxa aan ku bilaawnan hadda social mediaha aad ay negative uga badan tahay weliba bulshadeena isku day in aada fiirsan wax negative la dhaho subaxii ha ku bilaabin maalintaada kaa xumeynaysaa motivationna wax ay kusoo kac subaxii dhageysa isbar in aad socotid subaxii waxaa horta aada muhiim u tahay waxaa jira video aan kasoo hadlay janalkeyga hadii oo kii ugu dambeeyay socodka faa'iidadiisa subaxii markaa socotid maskaxdaada maxaa la dhahayay firfircooniya helaysaa inaad fikirtid inaad qof wax soo saar le noqotid midda kale in ayadana aad noqotid qof mar walba horumar naftaada waa inaad samaysaa horumarin samaysaa meesha ashada joogta ha joogin sax waa inaad horumar samaysaa hore u soco horta waxyaabaha ugu badan marka haddaa hadalka dhan isku soo koob waxay iskugu imaanaysaa naftaada investmenti geli anigana mid aan kugu darsada anabe waxaan xasuustaa kelmadaada ka dhawaajinaya subaxii markaan soo kaco marmarka qaar markaa tiktoka ku bilaabo maalintii dhan way iga xumaataa waayo tiktok waxaa ku arkaysaa marka waxyaalo kala duwan qaar heeso qaar naxdin qaar basi laakiin marmarka qaar markaan ku bilaabo xadiisyada maaragtay oo si fiican quraan ma ahaya xadiisyada wixii wacdi ah oo alla ka hadlaayo ama shucuur isiinayso oo salaada subaxna soo tukado wallahi baa maray maalinta dhow ii fiicnaataa salaada subaxda dadka waa isku raacay dadka ma lagu wada fiicno wax muhiim weeyaan ilaahay horta soo hanuuniyo anaga dhan inta islaam ah laakiin way fiicantaa salaada iyo inaan qof wax aada weyn anaga dhalinyaraana xoogaa waa ka weysana inaa kacno laakiin isku day inaa kacdaan salaada subax ani waa sir aa idin haayo iyo inaad subaxa liseydii aad dhegaysatid 30 daqiiqo kamid ah xadiisyada waxyaalaha wanaagsan kadib waxaad ku dhaqaaq aniga 30 daqiiqo waan adkaystaa kadib tiktoka hore ka gala ama youtubeka hore ka gala runtii yaa gabdho badan oo waashay baa jira qaarkood depression haayo qaarkood stress haayo oo la nool haddadana jirto qaarkood u maleeyo horta midda kale mayla qabtaa in qofku markuu xanuunsan yahay uu aqbalo xanuunkiisa dad baa inkirsan
horta xanuunka wiil ilaahay caafiyo aad u maskax badan oo garanaya jiray wuxuu dhahay wuu xanuunsaday marka wuxuu dhahay waa su-aalnaha waryar iyo anagii maxaa dhahay ka warano adigu wuxuu nooga sheekeynaya xanuunkiisa wuxuu dhahay waxa ugu weyn oo bartay waxa waaye dhahay waa accept gareeyay xanuunkayga marka xanuunkayga la saaxiibay oo dhahay علشان إنا فهمو سيدي علشان اسكو ديجين كرا داودي دينا قاعدة وقتيجي دكو قاعدة إنا دكتور كيرا حريرو أخبار ورطو حكو هايستو سو أنا كمان مرة بحاولي ديبريشن قبل إنه هايستو لكن ما فهم سنة مرة وحي ما عرفتي إنا هذا أهين وحي ما فهم سنة بدي مو أوجد إنا ما فهم سنة قارقود وحي كلين سحر باي هاي قفكي ديبريشن هاي waan soo arkaanay gabdho badan oo yara xanuunsan u jeedin xanuunsan yihiin sixir baa xogaa inkastoo sixirka iyo depression waa isku calaamadaba qaarkiis muuta waayo sixirka markii laga sixiro waxyaalo qaar oo kale caajis aad dareentid oo kale horta midaas maalin dhaweyn TikTok ku arkay gabar dhahay sooyada masas iyo wax saas ah horta ilaahay qofka maxaa la dhahay dhibkaas heesta ka qaado laakiin hal wuxuu aad u yaabaa jirto adduunka faqri hadii la dhaho number 1 كان Soomaali faqiirnimo faqri ana wadanka waa wadan faqiir ana meesha ka soo jeedno wadankan xataa marka joogno marka laga sheekeenayo ilmaheena dadkeena alshan mar walba faqriga galeena way ku jirtaa dadka wadamada ugu waaweyn bay faqrinimada ku jirtaa marka dad faqri ah maxay iska sixirayaan maxay iska xasdaayaan maxaa ani heystaa maxaa iga sixir kartaa oo heystaa faqriyaaba ahee faqir way wataa laakiin ogow aniga haddana waxaan arkay hor sixirku jira Soomaalida aad u adeegsataa gabdhaha qaarkood waxaa laga sixirayaa nin hebel oo kale ha iga eegin oo kale la iska sixirayaa xaasinimo gabadhaas ana xanuunsan wasay ku baaqto way xanuunsan tahay qaarkood way xanuunsan tahay oo qofka sixirays maxaa dhacay qof dad waxaa jira qof isiiyeen waa dadka dilana waarun waaba kaafiga qofku wax sixiro horta way jiraan dad wax sixiro gabar baa iska kaasanifeysa xataa wixii ku quuri weeyda nolosha ma ogtahay soo wixii isku dayaysaa inay sixir ku sameeyso meel yar ala tagaa qof lacag la siiyo way jirtaa horta waxa laakiin dadkeen waxa ku batay waxaan kala garan laanahay sixirkii depressionki labay kala yihiin soo qof walba xanuunsan uu sadhiin waa la sixiray horta depressionka xagaas hadii waxay ka soo qaato maanta social media wax ku badatay negative badan waxaa jiro gabdhaha wali walaa gabdhaheena masaakiin walaa gabdhaha aad waxyaabo badan dib ugu dhacaan nin walbo oo xanuunsan nin walba inuu manipuleeyo isku daya gabdhaha nimanka dhan maanta waxa u moodaa mid wuxuu caynayaa gabdhaha buubuuran mid wuxuu caynayaa gabdhaha caadcaatada mid wuxuu caynayaa gabdhaha gaagaaban mid gabdhaha dheerdheer oo caynaya waxa u moodaa kalsoonidooda banooni ku dheeli in la dhahay gabdhiga lagu dheelayaa soo gabdhaha ani qalska saaraya maxaa dhacay kalsooni ma lihidiin sabab niman niicayna marka ku ogahay calashaan maaragtay meesha daciifka taa ka taabana moogta so already waxay ka arkaan wiilashan iskuma kalsooni gabdhaheena mid kale waxa jecelna moogta waa qurux badan tahay in la dhaho la amaano adiga isdeh ani muraayada markaan tago wallahi waxaan dhahaa maanta quraan baa akhriyaaba ducaa la akhristaa ma jirto ducada waa inaan soo bartaa quraan akhriyaa sababta waa inaad adiga isku kalsoonaataa markaad muraayada tagtay aad ilaahu sidaan ii abuuray qurux badana alxamdulillah shukrata ilaahi u mahadna ilaahi baa insaanka waxa la yiri qalqiga ugu wanaagsan weeyaan wallahi ilaahi na siiyay waa wax oo nala siiyay weeyaan soo isku kalsoono waa qurux badanta maanta hadii lagu dhaho maxaa ku falaysaa adiga isdhaw waa qurux badanta inuu ku sheego marka maxaa la dhahay way og yihiin hataa wiilasha ma arkin maxay sameeyaan taqaanaa laakiin ana nin daciif ana kaas kale waa arkaa gabar raba inuu ku bahdilo wuxuu leeyahay gabadhaana qurux badan labada gabdhood markaas waxa laga yaabaa mid kale inay xoogo yar isniyad jabis is dhaadaya maybe tan kale ka qurux badan no ka waran qof walba dooq uu leeyahay niyad qofkan kula qurxan yahay qof kale adigana la qurux badan tahay marka mar walba isku kalsoonaada nin kugu dheeli karo mid kale nimanka inay caynayo si u falo gareysin ii sheeg gabdho waxbay u qoraan bay ninkii caynaya ani maanta maalin walba ereyga ay dhehaysa maaragtay haddii maalin walba igu soo celisid maskaxdayda bini-aadan ahay waxaas way taabanay xataa marka ila joogta haddii maaragtay ay ignore gareeyo waxaa laga yaabaa mar
gabdhaha wali waxaa haysanaa moogtahay waqtiyo oo sensitive nahay aad weyn waxa loo adkeysan karin oo wax yar hadii lagu dhaho laga yaabo inay ooyso gabadha wax yar hadii lagu dhaho waxaa laga yaabaa oohinta markaas in isku xirto guriga markay imaato ee ooyso waxyaaba badan waayo hormoonadkan anaga waa kala duwanahay marka ha aqbalin nacas inuu ku gabdhaha laftigooda ayaga laftigooda isniyo jabiya ma fiicna gabar baa waxay arkaysaa gabar horumartay gabar heer gaartay gabar wax fiican wanaagsan sameynaysa intay u qori lahayd wax wanaagsan ayaa sameynaysaa bay niyo jabinaysaa aad baan u arkay gabdhaha isniyo jabiya mid gabdha nin dartiis isku niyo jabiya nin baa lacala waxa idinka soo sheegayo idinka nimanka mugta intay wax u qoraa waxaa dhahaysaan keep going wax fiican sameeysa gabar kale ku dhigay walaasha ah yacni gabar walaasha markaa nin aad aragtay asagoo wax ka sheegay adigana biruhu kaa sheegaya mugta waa qasab weeyaan marka gabdhaha idinkana isbahdilina nimankan u daba nacamleynaysa horta nin baa la iga shidaaba nin gabar u daba nacamleynaysa la ima tuso fiifa gabar baan taaganaa gabdhaha isku waxeysma marka qodobkeena ugu dambeeya waxay tahay gabadha aan ahaan gabar singala nool waxaan dhihi lahaa haddaad alle ku isku xirtid labo haddaad aad isdhahdid wax walba waa qaban kartaa wax walba fududaysatid waa qaban kartaa keligay baan noolahay adi sidoo kale keligaa baa nooshahay familiya aan wax walba u qabanaa anaga horumar isa sameynay yacni anaga isdirnaa suuxi shaqada cid maa kuu kicisa adaa kaca qof walba asaga kacaaya yacni waxaasna waxay tahay waa alxamdulilah waa wax nagu jiro oo maaragtay starkii baan nahay waa dhigi karaa waa nooshka laakiin waxaan ka wadaa awood iyo karti ilaahayna siiyey marka gabdhaha waxaan leeyahay kartida mar walba waad leedihiin gabaraan karti lahayn ma jirto ha isdhihiin maaragtay kelinimaad dareemaysaa meesha intaa ka kacday boolaha isku tuurin gabdhaha mideeda kale ka waran canabay oo nin u degdega gabadh kelibay nooshahay waxay isleedahay kelinimadaasa uga baxdid nin iska guurso soo midkii kasoo horbaxay qab isku siinaysaa arrintaas waxaa ka leedahay horta gabdho way jiraan waa arkay weliba gabdho xoog yaryar ejigooda laakiin aaminsan ma noolaan kartid nin la-aantiisa kelinimada qof jecel malaha kelinimada marmar maaragtay way dhib badan tahay hadii alashaan laga hadlo qalbiga laakiin haddana maaragtay in aa isku kalsoonaatid waayo naftaada ku tuurin meel walba qofka kuu qalmina ku tuurin maxaa dhacay dad badan oo maanta waxaa jira kuu qalmin waa inaa fiirsasho badan tahay midda kale qofka markaa la hadlaysa xataa waa inaa meelo badan ka fiirsaa adduunku xumaaday waxaa ku badan qofki ilaahay xanuun keena ilaaha caafiyo laakiin dad badan oo xanuunsan oo waxaa jiro beri ku dhibaateyn karo so qofka ugu soo horeeya haddaa madax iskugu tuurtay waxaa laga yaabaa inta isleedahay kilika qaarkoodna guursaa laga bediyey aniga niila hadla way martaa mar walba anaa la iisoo qoray idinkaa kamid a dadka iisoo qora guurso haddaan niyadda gelin lahaa ka waran okay guurso markii la dhaho maxaa kaa qaldamaa guursatid alla mawlaa dadka dhan guursay ku leeyihiin maxaa kaa qaldan dig nin aan soo xarayso ninka iqaba beri kamaal idinka waa ka wasiila idinka waa ka wasiila walaalayaal aniga mayaale gabdhaha qofkii guurso ku dheh guurso ku dheh marka gabdhaha guurka adiga gabdhaha guurso aaleedinka daaya gabar baa ayadaa maskaxdeeda taqaana ayadaa nin soo qabsanaysa horta hal mid aa jeclaystay maadaama depressionka iyo kelinimada ka hadlaynay inaan ku darsado waxaa kaloo aad muhiim u ah marmar waxaa laga yaabaa saaxiib la-aan inaad dareentid meeshaana maaragtay marmar dadka isku mid maaha qofna bulsho waaye saaxiibada isaa keensado galgal waaye inuu qofka ku dhaho maanta maxaa haysaa ma kulmi karnaa kafee ma wada qaadanaa tuur ma wada aadnaa waxyaabahaas qofna waxaa laga yaabaa inuu xoogo cabsi ku yari jirto oo open oo ahayn marka dadkaas oo kale waxaa kula talin lahay haddii way fiican tahay ha cabsan haddii aa u baahan tahay marmar dad asxaabta message u qor wadadaas korsku baratiin qof walba ha ku dheh maanta ma kulmi karnaa gurigaa u kale marmar ku invite gareey markaa kalnimo dareentid marmar inaa socodka banaanka tuurarsla aadiin aada ayana muhiim u tahay haddii lacala marka aaweysid hadda 2020 oo kale ani haddaa ka hadlo maxaa experience eegi dad inaa la kulintid way yareed way yareed kafee ina fadhiisto way yareed marka inta badan alxamdulilah sameyn jira waxaa waaye intan gabdhihii oo isdhahaayo okay haddana gabdhihii waxaa laga shaqeeyaa gabdhaha waa aragta wadankan waxay ka shaqeeyaan meelaha caafimaadka iyo loo badan yahay anaga meeshaan oo kale waxaa haysan waqti waxaa jira dheer oo haysanay corona meeshaana ka jiray naftaadi adiga waxaa dareemay guilty dad u baahan dadka mala kulmi kartid
shaqada horta igu badneed waa shaqayn jiray laakiin shaqada xataa connection dadka ma jiro badan oo dadka inaa waayo waa la kala fogaanaya xataa saan iskugu dhowyaa ma jiri jirin wajiga xataa waxay xiran yahay aad depression waqti walaa depressionka aniga xataa markaas u taabtay markaasoo kale marka kelinimadaas aad dareento maxaa u baahan tahay ka bax guriga keligaaga lugeen duurka aad meelahaas ka fadhiisa aad jeceshaha oo kale najerka walahi la saaxiib najerka waa best friends oo waxyaabaha aku bartay inaa calashaan kelinimo noolaan karo maasha allah may walaa khibrad badan bayna bartay inaa kelin noolaan karo wax badan baa ma soo koobi karna halkaan 20 daqiiqo sii maraya insha allah ani yani waa laisla joognaa ani waxyaalo badan ay ku takhasustay waxyaalo badan bay idin faa'iideysaa insha allah waxaan rajaynayaa mar badan inaan isku soo noqono oo mar badan inta idin soo fariisiyo waxay noqonaysaa maxaa lahaa qofka labaad oo janaalka kasoo muuqda hadda kadib bay noqonaysaa waxyaala badan barnaamijyo badan isla soo wadeynaa waxyaala badan oo muhiim ahna janaalkeeda ku jiraan hadda kadibna wuu idiin soo gelinaysaa mar walba usoo qora canig waxaas inaa kasoo hadashid maalin waxaa dhahdaan kasoo hadal caafimaadka maalin waxaa dhahdaan kasoo hadal sidee maskaxiyan u kori lahaa maalin fitamiinada qaabkay isku cayiliya qaabka yacni 100 program wallahi oo muhiim bay idin haysaa insha allah coach ahaan waa dhiibtaa soomaa gabdhaha waa caawisaa sidaas oo kale macalimada inay noqonaysaa macalimada caadi ahayn soo dhawaada asxaabta maasha allah ana mid kale gabdhaha mar walba jeclahay inaan support gareeyo wiilashan dabcan waa jeclahay laakiin gabdhaha number 1 intii maasha allah mar walba gabdhaha madaxa noo saaran anoo dhan wallahi jecelnahay gabdhaha waayo gabadhaha ma ogtahay mar walba ayaga isdibdhiga saan horumar loo riixo bay u baahan yihiin maasha allah soo halkan aan kusoo gabagabaynaynaa canab linkigeeda hoos ayaa idiin soo dhigaya muuqaaladeeda waxyaala badan aad ka bogan doontaan insha allah maxaa leedahay canab marka ugu dambeysa waxaan leeyahay asxaabta waxaa rajeynayaa horta inta badan hadeertan waxaa arkaa in dadka ayna xiiseynin waxyaabaha faa'iidada u leh maantana social mediaha waa baddaas weynta camal oo malayga ka buuxo adiga maxaa dhahay waxaa dabanaysid mataqaanid marka waa muhiim ku tahay wixii caafimaadkaaga u fiican horumarkaaga u fiican maskaxdaada korinaya inaad raadsatid ana waxaan kula talin lahay meelaha aad wax ka faa'iidaysiin haddaa u aragtid qofkan waxa ka faa'iidaysaa waa inaad daawataa haddaad u arag waqtiga ku dhumin waa run badiyaa dadkeena wax faa'iido lahayn bay daawadaan subscribe u saaraan oo maasha allah yani ay aad u daawadaan ay ka yaabisid bilaa micno waxba aan ka faa'iideynin soo canab oo kale walaashana wax ka faa'iidi karno wallahi oo aniga wax ka faa'iidayo idinka wax ka faa'iideysa oo la hubo faa'iidadaas jirkiina iyo cuntada cuneed iyo noloshiina energy-giina u tashtaan ilaahay insha allah sidaas kiinana ku dhiirigeliya oo daawatiin oo calashan ku xiran tihiin ha ka cararina laakiin ku dhiirigeliya dhaha adduunku isbedele maxaa dhaha horumar dadka dhan wada hiigsadeen anaga ma rabna waxaan ana wadide wax fiican fikrada fiican oo la imaa xataa u keena hadda anaga hoos noogu soo qora videogan hoos waxaad tiraahdaa naju waxaa rabnaa canab waa nii soo qabanaya marka u baahataan waxaa dhahda waxaas rabnaa inay nagala hadasho ana waa nii soo fariisinaya ballan weeyaan ani laftigayga waxaa khibrad aan u leeyahay ama dhiirigelina oo idiin soo deenaya insha allah so waxaan igaga tegaynaa like horta ha ilmaamina videogan please dadku gaar cilada youtube maalmaha naga haysata ha iscaawino like badan noo sar insha allah commentigana saa doontaan gabdhood dhan ha soo fadhiisatay like la'aan soo noqon karaa waa macquul ma ahan ha ceebeeninaya subscribe noo soo saaraya subscribe soo saar hadda ay daawanaysid ha hadaminin aad subscribe soo saar insha allah asalaamu calaykum